بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Ditore Safiin. walaasha in la hadlaysa waa Ditore Safiin. walaalayaal waxaan rabaa inaan galabta idiin soo gudbiyo cashar ku saabsan maaragtay xagga haweenka iyo maaragtay ragga dhibaatada ka jirta waayahan dambe dhinaca guurka. marka waxaan rabaa inaan fartiin u diro su'aalna aan isweydiino. waxaad arkaysaa maantay gabdhihii iska waaweynanayo maaragtay aan guursanin, kuwii laga dhintay ama maaragtay la furay oo laftigoodii aan dayacan, raggii dhalinyartii oo nin guur raba aan lagu arkin, odayaashii laftigoodii oo haddii maanta ay naag markaas gabar kala tagaan wax aan jirin maaragtay guurahoo ay guursanayaan. marka waxaan meeshaas aan ka wadaa marka in guurka yaraaday, isla markaasna uu yaraan doonto, Soomaalidu inay yaraan doonto xaggii maaragtay tarankii ama dadkii la dhalan jiray inaysan dhalan, iyadoo taas sabab badan u keenaysa in maaragtay dadkii qaarkood maaragtay hadduu guurku yaraado haddana dagaal iyo balaayo ay jirtaan oo ayadii ummadii islaynayso, in haddana tarankii yaraado. waa dhibaato kale oo Soomaaliya u soo hoyatay, oo guurba uusan jirinba, dadkii dhalinyartii iyo dadkii waayeel cid kastaba ay tahay dadkii guurkii uu yaraado, guurkii la isguursanayn, dagaalihii balaayana socdaan oo dadkii la dhammaynhayo. marka waa waqtiyaalaha soo socda waxaa iska suurtogala Soomaalidu inayba iska yaraataba. taas waxaa marka aniga ujeedada hadda meeshan u socdaa waxaa waaye guurka yaraaday. waxaan is leeyahay waxaa sabab u ah is-aamin la-aan, la is-aamini waayey, iyo meediyahan oo maaragtay Soomaalida ama ummadan ilaahay wax walba, dad xun iyo dad fiican intaba waa laga helaa. laakiin hadda waxaa badatay jiradii, nin kastaba ama gabadhii ama wiilkii ama odagii jiradoodaa badatay. dadkan maaragtay cudurrada maaragtay la nool way bateen. waxaa kaloo batay maaragtay ayagana dadka meediyaha ku jira oo markaad qadka furtidba wiilal iyo gabdhaba waxaan ku yidhi aad leedahay, aad la yaabaysid foolxumada ka jirta meesha. marka nin walba waxaa ka dhammaatay kalsoonidii, gabadhii fiicanna waxaa ka dhammaatay kalsoonidii, wiilkii fiican ama maaragtay waxaa ka dhammaatay kalsoonidii. naag walba waxay leedahay ninka noocaana oo quruxdaan badan oo sidaan u shaqaynhaya maxaa hadhowto dhibaatadan la imaan doonaa. wiilkiina wuxuu leeyahay gabadha noocaana oo quruxda badan oo sidaan ku shaqaynaysaa, gabadha ayada lamida dhibaatana la imaanaysaa. waxaan rabaa marka inaan wax yar ka iraahdo, maadaama kalsooni la-aan ay timid, inaan wax yar ka iraahdo. horta Soomaali waxaan u sheegayaa in maaragtay aniga fakarka aan qabo waxaan is leeyahay waa kalsooni la-aantu waxay ka timid meediyaha iyo waxyaalaha iyo dhibaatada ka socda. inta badan kalsooni la-aantu halkaasay ka timid, iyo jirooyinkan badan oo soo wajahay Soomaaliya maantay, oo leeyahay intaasoo gabar oo AIDS qabto, intaasoo wiil oo AIDS qaba, intaasoo kaas qaba, oo qof walba marka wuxuu is leeyahay balaayo armaad qoorta gashataaba, uu leeyahay cabsi baa ku jirta. marka waxaan isweydiinaynaa marka sidee looga bixi karaa in haweenkii guur helaan, raggiina ay guur helaan, asagoo mid walba geeskiisa oo cabaadahay. midka aragti wuxuu ku leeyahay naag baan rabaa, naag iisoo raadi, naag baan rabaa, waa u baahanahay, baahi buu sheeganhayaa. gabdhahana mid walba iyaduna sidoo kaleeto waxay leedahay ninba ma rabay leedahay. gabadhi waxayba leedahay anugu nin maba rabiba. na maxaa kugu dhacay? nin fiican haddaa u sheegtid xataa waxay ku leedahay nin ma rabi. wiilkiina wuxuu leeyahay naag baan rabaa, naagtii fiicanna ma guursanahayo. war madaxay iskula jirtaa madaxa. marka sidee loo xallin karaa in Soomaalida haweenka iyo ragga isguursadaan, si sahal isku guursadaan, sidii ay sharaftii horeto loo soo celsho dadka isku guursan jireen. waxaan kaloo aan sii adkeeyaan isleeyahay qashin xun iyo qabiil xun, reer hebel iyo reer hebel iyo
waxunoo qashinoo meelaha bay dadku meydyahay balaayada la taagan yihiin oo qabiilaysta camal ah nin gabadha tiraa nin reer hebel uu leeyahay gabar heblaayo waa sidaas waa kaas oo gabdhihii maanta la caynhayo meydihii laga caynhayo marka gabar walba waxay isleedahay reer hebel haddaa guursatay armaa lagu caayaa baad isleedahay waan isleeyahay aniga fakarkeygaan kusoo daray waxaan rabaa marka inaan u diro meeshaan baaq uga diro gabdhaha iyo wiilasha anugu dhalinyaro iyo waayeelba intaba waan u dirhayaa dhalinyaro iyo waayeelba intaba way yihiin waxaan leeyahay baaqaan aan u dirhayaa horta in maaragtay qofkii jiradiisa qofkii jiran ama ragga aadan naagaya in layska baaro maanta dhaqaatiir baa taalla wadanka dhan waxa yaalla qalab lagu baaraa yaalla in layska baara kaas oo ay iska baaraan kaas anugu waan ku taageersanahay oo gabadhii iyo wiilkii aan iska aaminin hore la iska guursan waa ku taageersanahay maadaama dhibaato badan ay jirto laakiin waxaan rabaa xataa dooqii baa yaraaday ninku inuu gabar dooqo waxaa yareynaya gabar qurux badan oo si xun u isticmaalaysa meydiyihii ama si xun ugu jirta ayaa la arkayaa wiil qurux badan oo waxaa la arkayaa ama oday weyn oo haddii alkuureen si xun wax u isticmaalayo meydihii ku jira la arkaya marka xataa dooqii waa dhammaaday oo mid xun iyo mid fiicanba wixii waa isku darsadeen iyo mid fool xun iyo mid qurxoon intaba waxay noqdeen dad aan la aamini karin si kastaba arrimaha ha ahaadeene bal waxaan leeyahay walaalayaal Soomaaliya dib inta iskugu noqotaan horta gabdhuhuna ha guursadeen wiilashuna ha la guursado oo gabdhaha sida badanba ilmaha haysto garoobada oo haddii alkuur yahay oo raggoodii ka dhinteen sida baanta dagaal iyo baaba'ay dagaalo badan baa wadanka jira gabdhahaas maartay ha la guursado hooyooyinka ha la guursado ilmaha haysta ayaguna yay dhihin wiilka dhalinyartu markay soo doonato war kan waa iga yaryahay kan waa iga yaryahay wixii ilaahay wax ka siinayo oo ay wax ka guursan karto ha guursado wiilashu maartay ha guursadeen dadka naagaha waaweynka naagaha yaryar intaba waxa maartay calaf ayaa jira ha la guursado oo wiilashu afar baa u bannaan afarta ha guursato gabdhaha maartay ragga hal intay guursadaan koolada iskaga dhigayaan ha iska daayeen waa fakarka anigu aan qabo gabadhu waxa waaye reerkeeda markay ninkan guursato reerkeeda ha dhaqato wix ilaahay ka siiyana ha cunto waa sax waqti waa iska xun yahay qarashkii waa iska yaryahay dhib ase waxaa suurtagala inuu reerkii iyo uusan wax badan uusan kaba adkaynba laakiin kuwa waxaa ka liita aan haddii ila kuu ran yahay xaqii aan aadayne adigina kuu soo hoyanahaya xaaraana saa u daldalhayaa kasii liita kuwaasaa kasii liita marka waxaan idin leeyahay oon arrinteeda kusoo dhaweynaya insha allahu Soomaalidu sidaan si ka duwan ha keento gabdhaha dhalinyarta waliba gabdhihii maanta wax barto dhan gabar nin aadaysa ama guursanaysa ma jirto sababtoo ah waxay leedahay nin walba midkaan intaasaad adig qarash lagaa soo bixinhayay intaasaad maaragtay waalidkaaga qarash kaa soo bixinhayay nin maanta qarash kaa bixinhaya ma jiro nin walbana wuxuu rabaa inuu gabadhii lacag la-aan iskaga helo oo gabadhii meelihiisa iskaga farfarxumaystuu rabaa ama sidaas uu ku keeno war ilaahay baa risqiga bixiye nin walba jaabkaaga iyo gacantaada iyo ehelkaaga inta dhex gashid gabadha si fiican u guurso u aroos u sharaf u weyne u qadari adiguna ninkaan ha ku fiirin maal badan ma leeyahay adduunyo ma leeyahay ku fiiri dabeecadiisa iyo wanaagiisa iyo inuu wax rabo gabarey hadday oday tahay hadday naag dhexaada tahay hadday habar tahay guurku qof walba waa u bannaan yahay anigu qof aan guurka xaggiisa ka xirahayaa ma jiro waxaan leeyahay guurka ha la badiyo ha la guursado rag iyo dumar oo isguursada waa ilaahay wuxuu noo baneeyay oo na siiyey oo khayr ah waaye nin walba waxa waaye ha dhaqaaqo meelaha lagu kala jirjiro iyo dhibaatooyinka oohinta nin walba meel ku haysata ha la iska daayo ragga waxaan ku leeyahay xataa boonbalayaasha wax ka dayhayo balaayada meelaha ku jirto ha iska dhaafto ragga gabdhihii si xun wax uga doonaya ama dariiqyada maaragtay dhahaya maaragtay ku dhahaya dharka iska faydiyo tus waxaaga iyo waxaas ragga dhahaya iska daa ilaahay gabar wanaagsan buu ku siinhayaa ha guurso gabdhaha ayaguna qashinka ahoo intay maaragtay raggu dharka ka dhighayo filimaanta laga duubahayo meelaha ayagoon la joogin maaragtay naisoo tus qalabkaaga iyo balaayadaada dabada iisoo tusi dhahayana gabdhayahu adinkuna dib iskugu noqda sharaftiina ilaashada ninkan hadduu idin rabo waa idin guursanaa hadduusan ku rabin soo maahan walluusan xagga kuu fiirinayn jacaylka waxaa la yidhaahdaa
jacaylka sida badanba jacaylka ugu wanaagsan waa jacaylka markii aad ninkaagaan guursatid kuu yimaado waaye oo gadaalkaaga yimaado ee jacaylka markaa ninka horeba inta ka jeclaatay wuxuu rabo kugu samayn karo ama wuxuu rabo kaala tegi karaa ma aha aniga waxaan inkula talinayaa jacaylku wuxuu ka yimaadaa gabadha iyo wiilku markay isguursadaan fahanka iyo wanaaguna wuxuu ka yimaadaa markay isfuursadaan waagi horta ummadda waa laysiin jiray nin walba gabadhiisa ciduu rabuu siisan jiray waa la isfahmi jiray gadaala la iska fahmi jiray gadaal baa la iska jeclaan jiray reerka saas ku dhaqmi jiray hadda xiise iyo qababac iyo waxay markay dhacdo isla markiiba gabadhii ninkii iyo naagtii oo kale xiise dhacayaan gabadhii baa la xumaynhayaa ninkii asaga laftiisa bacaadaa looga tagaa dhibaatadaasaa jirta waxaan rabaa marka maanta kusoo gabagabaynhayaa ilaahay ha laga cabsado guurku waa shay qaaliya guurku waa shay ilaahayna siiyey nin iyo naag way isku baahan yihiin hal dad yahow guurka wanaajiya sharfa yaa qof walba meel guurka yuu haddii ilaahay kuu reeyahay niman yahow gabdhaha sharfoo guursada si fiican u sharfa gabar yahay maaragtay adinkuna ragga soo dhoweeya qurxiya ninkaan idin rabinna jirkiina iyo ka ilaashada yaa jirkiina iyo dharkiina xirta iska ilaaliya nin allaale ninka idin xumeynahaya iska ilaaliya oo jirkiina iyo bannaanka wixiina soo dhigahaya qalabkiina iska ilaaliya ilaahay kaga cabsada waxa ilaahay raalli ka yahay maahan inaad jirkaaga bannaanka aad keentid gabar yahay tiktokkan iyo balaayadan haddii ilaahay kuu ron yahay qashinkan waxa waaye mustaqbalkaagay gadaal u dilahayaan waxaa cuntid ilaahay baa ku siiya risqa ilaahay baa ku siiya markaa hadlaysid oo wax arabtid inaad tiktok wax ka heshid inaad jirkaaga iyo foolxumadiisa intaa lulushid inaad wax uga heshid maahan wiilashii sidoo kale qababaclahoo ismarmaroojinahayo war sidaas waxyaalahan jirkooda lagu lulahayo dheefta looga raadinahayana waxaan leeyahay nin walbow iska yareey nin walbow iska dhaaf ilaahay ha laga cabsado aad baan idiin salaamhayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu